وورين waxaan rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celiyo noo suuro geliyay kulankan qiimaha badan sharafta badan oo maanta oo taariikh tahay 12 bishii 8 sax 2019 ciwaankiisuna oo ahaa isbarasho iyo soo dhaweyn aan ku soo dhaweynaynay taliyaha qaybta 12aad taliye qooje iskuna barnaayeen saraakiishiisii kala tirsaneed qaybta 12aad wuxuu nagu soo gabagabay si fiican waxaan naga soo baxay qodobo koow in wada shaqayn dhab ah la yeesho labo in cadawga si wada jir ah looga hortago saddex in awaamirta si toos ah loo kala qaato taliyaha qaybta 12aadna aan ka amar qaadano haddaan nahay saraakiisha qaybta 12aad anoo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad waxaan si toos ah ula shaqaynaynaa uga amar qaadanaynaa taliyaha qaybta 12aad waxa xusid gooniya mudan in saraakiishu dhammaantood ay u diyaar garowsan yihiin inay amniga sugaan cadawga ka hortagaan dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda sare iyo qeybaha kala duwan ay soo dhaweeyaan si aan kala har lahayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeyn ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya mudane xasan cali khayre sheekh maxamed shaakir gudoomiyaha madaxa xukuumadda galmudug دكتور شيخ شاكر علي حسن مع محمود شيخ حسن قدوميها جود أهل السنة والجماعة هلجنكي iyo juhdigii ay ku bixiyeen ay ku wada jir ah in maanta ay meeshan soo gaarto midnimada noocan ah in qarankii Soomaaliya uu hana qaado meeshan in lagu midoobo macnaheedu wuxuu lamid yahay in qarankii Soomaaliya uu kor u kacay sababtoo gobolada dhexe waa laf dhabartii Soomaaliya marka waxaan mar kale u mahadcelinayaa mas'uuliyiintaas ugu horeeyay wasaaraha Sheekh Maxamed Shaakir iyo Maxamed Sheekh Xasan muddo fara badan ay ku bixiyeen sidii loo midoobi lahaa kala xirxirka iyo dhibaatadana looga kala macnaha looga badbaadi lahaa cadawga Soomaaliya dhabarka looga jabi lahaa marka waad ku mahadsantihiin wasiirka wasaaraha Soomaaliya waxaan si qaas ugu simahadcelinayaa in uu muddo 2 bilood ku dhawaad ah oo halkan u fadhiyay shaqadii guud oo Soomaaliyana uu hayay qayb kamid ah halkan uu muddo u hayay una dul qaatay kuna soo gaarsiiyay in maantay qaybihii dawladda kala duwan ay si toos ah kan ugu shaqeeyaan dhammaantii waa mahadsantihiin waxaad ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad shirkan maantay qada sharafkan oo noo sameeyay taliyaha qaybta 12aad mudane qooje aad u soo qayb gasheen u soo ajiibteen una tusteen taageerada aad u haydaan iyo waa shaqeynta mahadsantihiin